عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdixamiid. waxaan halkaan idinku soo gudbinayaa haddii alla idmo chapterka Forms of Business Unit 1 oo syllabuska businesska Puntland kaga qoran chapterka 3. chapterkan waxa uu si faahfaahsan uga hadli doonaa haddii Rabbi idmo qayb ka mid ah noocyada ganacsiga haddii alla inoo qadaro. chapterkan ayaa waxaa loogu talagalay inay dhigtaan ardada fasalka 3 ee dugsiga sare. chapterkani waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo aynu ku baran doono 3 cashar oo kala duwan. casharka koowaad ee chapterkeenu waxa uu ka hadli doonaa ganacsiyada halka qof uu leeyahay ee loo yaqaano sole traders. objectiveska ama ujeedka laga leeyahay casharkana waxa weeye marka uu casharku dhamaado ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qeexo ereyga business unit, inuu qeexo isla markaana uu sharaxo waxa uu yahay sole trader, sidoo kale inuu faahfaahin ka bixiyo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay ganacsiga sole traderka. casharkii oo bilaabmadena waa kana. waa maxay business unit? business unit waxaan leenahay waa organization shaqadiisu tahay soo saaridda badeecadaha iyo bixinta adeegyada si loo qanciyo baahi bini'aadan ayadoo ujeedka laga leeyahayna ay tahay in faa'iido laga helo. business unitska waxaa loo kala saari karaa noocyo kala duwan. tusaale ahaan waxaynu ka eegi karnaa ganacsiga baaxaddiisa, waxaan u kala saari karnaa ganacsiyo yaryar, kuwa waaweyn iyo kuwa meel-dhexaad. sidoo kale waxaan ka eegi karnaa ganacsiga nooca uu yahay ama cidda iska leh, inagoo u kala saari karna ganacsiyo dawliya iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay. laakiin casharkan form 3 waxa uu xoogga saarayaa inaynu ganacsiyada u kala qaybino inagoo u fiirinayna dhismahooda ama qaab dhismoodkooda sharciyeed ama waxa loo yaqaano legal form ama legal structure. marka loo eego legal form ama legal structure ganacsiyada waxaynu si guud ugu kala qaybin karnaa ganacsiyo aan u baahnayn in sharci la raaco marka la samaynayo oo loo yaqaano unincorporated businesses, iyo ganacsiyo u baahan in sharci loo raaco marka la samaynayo oo loo yaqaano incorporated businesses. unincorporated businesses waxay ka kooban yihiin ganacsiyada loo yaqaano sole traders oo aynu casharkeenan xoogga ku saari doono, iyo ganacsiyada loo yaqaano partnerships. sole traderku waa ganacsi hal shakhsi uu leeyahay, halka partnershipkuna uu yahay ganacsi ay wadaagaan 2 qof iyo wixii ka badan. waxaa jira noocyo badan oo incorporated businesses, laakiin form 3 intaynu dhiganayno waxaynu ka soo qaadan doonaa shirkadaha gaarka loo leeyahay. ganacsiga sole traderku asagu muxuu yahay? sole trader ama sole proprietorship waa ganacsi uu aasaasay ama iska leeyahay hal qof. halka qof ayaa samaystay maamusha isla markaana shaqooyinkiis iyo hawlihiis oo idilka qabsada. sole traderku waxa uu leeyahay features kala duwan. kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah waa ganacsi hal shakhsi uu leeyahay, waa ganacsi aad u yar oo qofkaas uu maamusho. sidoo kale ganacsigan dhammaan wixii capital ee ganacsigu ku shaqeynayo waxaa bixiya oo keena qofka mulkiilaha. sidoo kale dhammaan wixii deymaa iyo wixii dhibaato ee ganacsigana keensado waxaa dusha u rita oo laga doonayaa waa mulkiilaha. sidoo kale dhammaan wixii go'aana ee la gaarayo waxaa qaata qofka mulkiilaha. sidoo kale qofka mulkiilaha waxaan oran karnaa wuxuu leeyahay wax loo yaqaano unlimited liability. haddii aan faahfaahin yar ka bixiyo waxaan ula jeedaa marka ganacsigu uu dhib keeno sharci ahaan dhibtaas waxaa dusha u ridanaya qofka mulkiilaha. sidoo kale dhammaan faa'iidada ganacsigu uu sameeyo qofka mulkiilaha ayaa iska leh oo qaadanaya, oo ma jirto profit sharing ama ma jirto waxa loo yaqaano saami qaybsigii. sidoo kale sharcigu uma aqoonsana ganacsiga noocaana inuu yahay ganacsi sharciyan madax bannaan ama waxa loo yaqaano legal entity male. legal entity macnaheedu waxa weeye ganacsigu inuu ka madax bannaan yahay qofka mulkiilaha marka loo fiiriyo dhinaca sharciga.
qaybtaana waxaan kaga hadli doonaa faa'iidada iyo faa'iido darrada uu leeyahay ganacsiga sole traderska. ganacsiga sole traderka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in si sahlan loo asaasi karo maadaama uusan u baahnayn habraacyo sharci oo laga doonayo qofka samaynaya ganacsiga sole traderka inuu raaco. ganacsiga sole traderka wuxuu kaloo ku fiican yahay inuu u baahan yahay wax yar oo lacag oo lagu bilaabo. sidoo kale ganacsigani waa fududahay in la maamulo, sababtuna waxa weeye inta badan uma baahna ama male shaqaale fara badan oo ka shaqeeya. sidoo kale qofka sole traderkaahi waxa uu u madax bannaan yahay maamulka fikradaha iyo go'aanada ganacsigiisa. sidoo kale dhammaan faa'iidada ganacsigu uu helayo waxa qaata mulkiilaha. wuxuu kaloo ku fiican yahay go'aanka qofka mulkiilaha oo qaadanayahay waa mid degdeg ah, sababtuna waxay tahay ma jirto cid kale oo uu la tashanayo. midda ugu dambaysana waxay tahay in dawladdu aysan faragashan ganacsiyada sole traderska. sidoo kale waxyaalaha ganacsiga sole traderska ay ku liitaan waxaa ka mid ah unlimited liability inuu yahay ganacsigu. unlimited liability-na horey ayaan u soo sharaxnay. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha uu ku liito ganacsigu in qofka ganacsadaha uusan helin wax caawimaada ama uusan nasan oo keligii uu shaqaynayo. sidoo kale ganacsigu aad buu u yaryihiin, ganacsiyada sole traderska aad buu u yaryihiin, mana leh aqoonsi sharciyeed oo ka madax bannaan kan mulkiilaha. sidoo kale ganacsigu haddii qofkii uu dhinto ama dhibaato kale soo gaarto ma sii shaqaynayo oo wuu xirmayaa. waxyaalaha ka maqan waxaa ka mid ah wadatashiga inuusan ka jirin ganacsiga. sidoo kale inta badan dadka ganacsiyada yaryar samaystaay ma leh xirfadii maamulka oo ay ganacsigooda ku horumarin lahaayeen. midda ugu dambaysana waa dhammaan khasaarihii iyo daymihii waxay dusha ka saaran yihiin mulkiilaha oo kama badbaadayo haddii ganacsigu dayn galo iyo hadduu khasaaro galo midna. qaybtanna waxaan ku eegi doonaa halka uu raasumaalka ka helo qofka sole traderka kaliya ganacsadaha. waxaa jira meelo badan oo ganacsiga sole traderka uu ka heli karo raasumaalka marka laga reebo inuu bixiyo share oo uusan u ogolayn sharcigu. ganacsiga sole traderka waxa uu raasumaalka ganacsiga ka keeni karaa lacagihii uu meel dhigtay. sidoo kale wuxuu raasumaalka ka dhigan karaa hantidii uu markaa haysto inuu u bedelo ganacsi. wuxuu kaloo raasumaal ka dhigan karaa xoolo gooyada iyo deeqda iyo dhaxalka uu ka helo qaraabadiisa. sidoo kale wuxuu raasumaal ka dhigan karaa amaah uu ka soo qaatay bangiga iyo deymaha uu ka soo qaatay ganacsiyada kale. sidoo kale wuxuu raasumaal ka dhigan karaa faa'iidada ganacsiga dib loo geliyay. retained profitka dib ayaynu u arki doonaa markaynu marayno casharka saddexaad. qaybta saddexaad ee casharkeennana waxaan kaga hadli doonaa sida loo milo ganacsiga sole traderka. ganacsiga sole traderka waxa uu milmayaa marka ganacsigu uu sameeyo khasaare culus oo uusan ka soo waaqsan karin. sidoo kale marka qofku waasho ama uu dhinto ama uu musallafo. sidoo kale marka dantii ganacsiga laga lahaa ay dhammaato, sida ganacsi loo sameeyey waqti kooban inuu shaqeeyo. sidoo kale marka qofku si iskiisa uu ganacsigii uga baxayo. iyo midda ugu dambaysa oo ah marka maxkamadu xukunto in ganacsiga la milo. casharkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.